bismillahi raxmaani raxiim warmurtiyeed madasha maareerada galmudug maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 8aad 2023 waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay shirka madasha maareerada dowladda galmudug oo socday 23 ilaa 25 Agost 2023 shirka oo ay garwadeen ka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda galmudug waxaa ka soo qayb galay maareerada dhammaan degmooyinka xorta ah ee dowladda galmudug sidoo kale waxaa shir ka soo qayb galay wasiirada ku jira guddiga xasilinta gudoomiyaha gobolka galguduud iyo agaasimaha madaxtooyada ugu horeyn madashu waxay bogaadinaysaa howlaha dib u xoreynta ee ciidamada qaranka kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo ciidamada deegaanku ay ku xoreynayaan degmooyinka gacanta khawaarijta ku jiray muddada dheer iyo howlaha xasilinta ee ka socda degmooyinkii dhawaan la xoreeyay marka labaad madashu waxay bogaadinaysaa go'aankii madaxweynaha dowladda galmudug uu ku furay dhammaan wasaaradaha dowladda galmudug in ay si buuxda uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro khawaarijta marka saddexaad madashu waxay u mahadcelinaysaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda galmudug doorka ay ka qaadatay qabsoomidda iyo hal-abuurka madashan oo ah madal muhiim ah marka afraad madashu waxay isla garatay in ay jiraan caqabado mar walba soo laalaabto oo ay ugu horeyso isku dhacyada qabiilada sidoo kale waxaa jira caqabado badan oo la sii saadaalin oo ay wajahayaan guud ahaan magaalooyinka galmudug sida fiditaanka magaalooyinka qorshe la'aan fatahaadaha xilliga roobka iyo brofaylada degmooyinka oo aan weli samaysnayn marka shanaad madashu waxay hoosta ka xariiqday muhiimadda maamul daadejinta iyo caqabadaha ka dhex jira wada shaqaynta dowladaha hoose iyo guud ahaan wasaaradaha si xal looga gaaro caqabadaha kor ku xusan iyo kuwo kale madashu waxay soo saartay warmurtiyeedkan kow in la joogteeyo madasha maareerada galmudug 6 biloodba mar 2 in kor loo qaado lana xoojiyo maamul daadejinta socota si dowladaha hoose u bixiyaan una joogteeyaan bixinta adeegyada ay u baahan yihiin muwaadiniintu 3 in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadaha mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladaha hoose 4 in la abuuro nidaamka qorsheynta magaalooyinka galmudug maareynta dhulka dhismaha gudiyada xalinta khilaafaadka dhulka si waafaqsan shuruucda xeerarka iyo siyaasadaha jira 5 kor u qaadidda doorka haweenka dowladaha hoose dhinacyada hogaaminta go'aanada talooyinka iyo la tashiyada 6 dowladaha hoose in ay qaataan door wax ku ool ah oo la xiriira saamaynta isbeddelka cimilada abaaraha soo noqnoqday daadadka barakaca gudaha qaxootiyada iyo xasilinta deegaanada galmudug 7 dardargelinta dhismayaasha golaha deegaanka degmooyinka cusub ee galmudug 8 in maamulo ku meel gaar ah loo sameeyo degmooyinka laga xoreeyay khawaarijta dhowaan iyo kuwa la xoreyn doono 9 in maamulada degmooyinka dowladda galmudug ay uga howlgalaan ka howlgalaan dadka qaxootiga ah ee ku soo qulqulaya degmooyinka dowladda galmudug isla markaana ay dib ugu celiyaan dalalkooda haddaysan ahayn kuwo magangeli doon ah 10 in la cagaariyo magaalooyinka iyadoo lagu beerayo dhir 11 in dowladaha hoose ay dardargeliyaan howlaha wacyigelinta bulshada gaar ahaan la dagaalanka khawaarijta iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah 12 shirku waxa uu walaac ka muujiyay shaqada iyo wada shaqaynta isku duwayaasha ka howlgala degmooyinka galmudug 13 madashu waxay ogeysiinaysaa dhammaan wasaaradaha kala duwan ee galmudug in ay joojiyaan dadka ay u soo magacaabayaan degmooyinka galmudug oo la yiraahdo focal pointiska ayaga oo tixgelinaya dastuurka galmudug sharciga dowladaha hoose maamul daadejinta iyo shuruucda kale ee dowladda galmudug 14 madashu waxay soo jeedinaysaa in dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda ay ka heshiiyaan
aruurinta canshuuraha iyo kala saaridda madaxyada canshuuraha. ugu dambeyntii madashu waxay soo dhaweyneysaa diiwaangelinta dadweynaha oo dhowaan ka bilaaban doonta degmooyinka kala duwan ee Galmudug.